maanta qofka soo fadhiisanaya ku doodayay odhanaya marka 10 kun oo qof oo dhulbahanta la dilo ama deegaanka ka soo jeeda ay Soomaaliland aqbalayaan waa kuma qofka sidaa odhanaya in Maxamedow waa kuma qofka odhanaya marka 200 oo kun oo caruur qaxaanay darxumoodaan ay maxaan ku raahdaa qaxoontiyada ay ku jabaan maxaan ku raahdaa 20 kun oo caruur ay agoomoobaan intaas oo hablood la kufsaday ay dhibaato gaadho ay qasab ku noqonaysaa ay Soomaaliland aqbalayaan ay Soomaaliland jeclaanayaan ay Soomaaliland ka mid noqonayaan waa kuma qofka odhanaya iyagoo maqan bay Soomaaliland dawlad noqonaysaa waa kuma qofka odhanaya xoog baan ku qabsanay xoog baan ku haysanay xoog bay gula joogayaan war aqli bay u baahan tahay talay u baahan tahay odaynimo u baahan tahay waxay u baahan tahay in laga fakaro oo loo tala balaarsado dagaalkaasi magaceeni baa ku dhintay dadkeeni baa ku dhintay sharafkeeni baa ku dhaawacmay dhaqaalaheeni baa dhulka u degay oo maanta wad ka waraysa inta business Soomaaliland ka kacay suuq inagu Soomaaliland ahaan duni badan oo aynu ganacsi la leenahay ma jirto laakiin tiisa dariiq inoo furan buu ahaa ilaa gaal kacayo qofka ka yimaada Hargeysa soo adeeg doonta Hargeysa yimaanay ama dhakhtar ha u yimaado ama ganacsi kale ha u yimaado ama hawl kale ha u yimaado qofkaasi waxa uu lacagta yar ee soo qaataa $100 oo Hargeysa la yimaada taxi baa wax ka helay hotel buu seexanay wax ka helay dukaan buu wax ka iibsanay dhakhtar buu number ka iibsanay dawo iibsanay cycle ka economiga ay qayb ka mid ahay waxa jirta theory la yiraahdo butterfly effect small things ka yar saameynta weyn ay yeeshaan noloshu waa chain isku xirxiran marka hadduu qofku isaga inta agtiisa joogto uu iyo gurigiisa iyo nimcada uu ku jiro oo noloshii kalaba uu arki waayo run ahaantii mushkilad weey siyaasadeena maanta ta ka muuqata taa weey dadkii reer Somaliland in dagaal baa dilay in gaajo iyo fakhri baa dhibaato haysata wadankii dhaqaalihii ma socdo investment ma jiro wax walba stack bay galeen oo ay taagan yihiin xukuumaddeena hees cusub ay soo qaado loo baqi maayo la yiraahdo marka qaranka anigu moogtay hees aad uma qabto laakiin tiise heestay ay tiin may qaranka loo baqi maayo hees la yiraahdo macal xukuumadii hore ka heesa fiicnaayo qaranka dhismayeeyo maxay